kulanti wacan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa Ilawara News. Haddaad nagu cusubtay fadlan subscribe-ka noo taawo si aad u hesho xog ku saabsan wararka caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Haddaba waxaan wararniga haynaa weerarka Israa'iil ku qaaday Iran. Maxaa laga ogyahay weerarka Israa'iil ee Iran iyo goobaha lagu beegsaday? Israa'iil ayaa Jimcihii sheegtay inay duqeymo ku fulisay goobaha nukleerka iyo kuwa militariga Iran, iyadoo ballan qaaday inay sii wadi doonto howlgallada militariga si khatartaasi loo baabi'iyo. Weeraradaas ayaa lagu soo sheegay dhowr gobol ee dalka Iran ah, waxaana qaraxyo laga maqlay caasimadda Tehran iyo xarunta muhiimka ee kobcinta uranium-ka. Maxaa laga beegsaday? Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahoodu duqeynta dhowr bartilmaameed militariga ay ku jiraan goobaha nukleerka iyo meelo kala duwan oo Iran ah. Qaraxyada ayaa lagu soo wariyay magaalada Tehran, halkaasoo telefishinka dowladda Iran uu sheegay in dab iyo qiiq laga arkay xarumo muhiim ah oo ilaalada kacaanka ku taalo bariga magaalada. Sidoo kale telefishinka qaranka ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Natanz oo ku taalo gobolka dhexe ee Isfahan, halkaasoo xarun muhiim ah oo nukleerka ku taalo. Warbixinta dowladda ayaa sheegtay in xarunta kobcinta uranium-ka ee Natanz lagu beegsaday dhowr jeer, iyadoo la baahiyay muuqaalo muujinaya qiiq culus oo ka baxaya xaruntaasi. Sida ay sheegeen warbixinta gudaha Iran, guryo ku yaala magaalada Tehran ayaa burburay, waxaana la xaqiijiyay in dad rayid ah ay ku dhinteen weerarka. Saraakiil ka tirsan hay'adda ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in weeraradu ay u badan tahay inay dileen Mohammad Baqeri, taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida Iran, iyo sidoo kale saynisyo sare oo ka shaqeeya barnaamijka nukleerka. Dhanka kale, warbaahinta Iran ayaa ka warantay in taliyihii guud ee ilaalada kacaanka Hussein Salami lagu dilay duqeynta. Maxaa hadda weerarka loo qaaday? Israa'iil waxay u aragtay dowladda wadaadada ee Tehran inay halis ku tahay jiritaanka, iyadoo horey u beegsatay nidaamka difaaca cirka ee Iran sanadkii hore. Wasiirka difaaca Israa'iil, Israel Katz, ayaa ku tilmaamay weerarka tallaabo hortag ah. Mareykanka, Israa'iil iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa si joogto ah u eedeeyay Iran inay isku dayeysay inay horumariso hub nukleerka ah, arrin Iran si joogto ah u beenisay. Israa'iil ayaa mar kale ku baaqday in ay tallaabo caalami ka qaado kadib markii ay hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada ay Arbacadii ku eedeysay in Iran aysan u hoggaansamin waajibkeeda. Waxaa jira calaamado hore oo muujinaya in weerar militari la qorsheeyay, iyadoo warbaahinta Mareykanka ay soo warisay weeraro Israa'iil soo socdo, kaasoo aan lala socodsiinin Washington. Ma dhihi karo waa mid dhici doonto, balse waxa uu muuqataa wax dhici karo waqti dhow, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Khamiistii xilli suxufiyiintu weydiiyeen haddii weerar Israa'iil uu dhow yahay. Wejiga lixaad ee wadahadallada nukleerka ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ayaa lagu waday inuu Axadda ka furmo dalka Cumaan, ayaa ka qayb qaatay. Inkastoo Israa'iil ay si weyn ugu tiirsan tahay Mareykanka dhanka taageerada militariga iyo mid diblomaasiyadeed, haddana weerarada ay kaligeed qaaday, siday u sheegtay diblomaasiye sare oo Mareykanka ah Marco Rubio. Annagu kuma lihin wax shaqo ah weerarada Iran, mudnaanteenuna waa ilaalinta ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka, ayuu yiri Rubio, isagoo uga digay Tehran inay ku beegsato danaha Mareykanka. Rubio wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'iil ay nagu soo wargelisay inay u aragto tallaabadani mid laga maarmaan u ah difaaceeda, isagoo aan cadeynin taageero ama cambaareyn doone. Sida lagu falceliyay, garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tehran ayaa hakiyay dhammaan duulimaadyada, halka dowladda Ciraaq ay qayb ahaan xirtay hawadeeda. Israa'iil ayaa sheegtay in Iran laga yaabo inay si degdeg ah uga aargoosato, waxayna ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo sidoo kale xirtay hawadeeda. Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Trump uu la kulmi doono saraakiisha amniga kadib weerarka, iyo tallaabadan Israa'iil ay u cambaareysay. Senatarka Jack Reed, xubintiisa ugu sarreeya ee Dimuqraadiga guddiga adeegyada militariga ee Senatka Mareykanka, go'aan halis ah ay Israa'iil ku qaaday weerarka cirka ee Iran, waxaana kicin khatar ah horseedi karo fowdada guud ahaan gobolka, ayuu yiri Reed. Wararka ayaa sababay in qiimaha saliidda kor u kacdo ilaa 6%.